Assalaamu calaykum. Maanta muuqaalkeenu waa mid xasaasi ah. Waxaynu ka hadli doonnaa halka uu ka soo bilowday asal ahaan cilmiga hidde-sidaha ee afka qalaad loo yaqaano genetics. Intaan muuqaalkeena guda gelin aan isla fahanno waa maxay hidde-side. Barashada hidde-socodka waa laan ka mid ah laamaha biology-ga la xiriira, taasoo lagu barto dhaxaltooyada iyo kala duwanaanshaha noolaha. Hidduhu wuxuu noqon karaa qofka waalidiintiisa inuu raaco dhirir ama gaabni iyo wixii la mid ah. Sidoo kale aan isla fahanno waa maxay DNA. DNA waxaa loo soo gaabiyaa deoxyribonucleic acid. Waa unug ka kooban tilmaamaha hiddaha ee noolaha oo dhan, sida xayawaanka, dhirta, bortistiska, aarke iyo bakteeriyada. Xagee laga helaa DNA-da? DNA inta badan waxaa laga helaa seelka ama unuga. Sidoo kale waxaase ka mareen DNA-ga qofka meel waliba in laga baadhi karo, sida tinta, candhuufta, dhiigga iyo wixii la mid ah. Waxaan filayaa inaan isla soo fahanay waxa laga wado genetics ama hidde-side. Sidoo kale inaan isla fahanay DNA. Waxaanu sii gudagalaynaa muuqaalkeena. Asal ahaan yaa bilaabay tijaabada DNA-da, cilmiga hidde-sidaha. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isbitaal ku wada umulay laba hooyo, mid waxay dhashay wiil, midna gabar. Kadib shaqaalihii nurseska ahaa ayaa waxay isku qaldeen labadii cunug. Waxayna kala garan waayeen midda dhashay wiilka iyo ta dhashay gabadha. Muran dheer kadib ayaa waxaa la isla tegay maxkamaddii. Xilligaas ma ayna jirin cilmiga ah in DNA-ga wax laga baaro. Garsoorkii maxkamadda ayaa ku wareeray arrinkan, kadib ayaa lagu ballamay in muddo la sugo oo baaris dheer la galo. Intii baarista lagu guda jiray waxaa dhacay in mid ka mid ah dadkii baarayaasha ahaa ee loo xilsaaray arrinkani oo aan isagu islaam ahayn uu yidhi, bal xagga islaamka ka eega. Iyaga ayaa yidhaahda wax waliba kitaabkeenna ayaa sheega. Kadib ayaa waxaa loo tegay nin caalim islaam ah oo aad ugu dheereeya daawo dhaqameedka ama herbal medicine-ka iyo inuu Qur'aanka dadka ku daweeyo kuna kala xukumo. Markii loo tegay ayaa waxaa loo bandhigay dhibkan jira inuu bal xal u hayo. Ninkii caalimka ahaa ismaba dhiibin. Waxa uu amray in labada hooyo caanahooda la soo liso oo loo keeno. Kadib ayuu tijaabadiisii gudagalay, waxaana uu si dhaqso ah u soo saaray xukunkii. Waxaana uu yidhi, wiilka hooyadaas ayaa dhashay, gabadhana hooyadaas ayaa dhashay. Kadib ayaa la weydiiyey waxa uu ku caddaynayo. Waxa uu ku jawaabay, Qur'aanka ayaa sheegay in caanaha hooyooyinka ay kala duwan yihiin marka wiil dhasho iyo marka gabadhi dhalato, oo ay ka jaamuud iyo tay adag yihiin caanaha hooyada wiilka dhashay. Waxaana uu sheegay aayad uu ka soo saaray oo ku jirta suuratu Nisaa: A'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim. Yuusiikumullahu fii awlaadikum lidhikri mithlu hazzil untayayn. Alle wuxuu idin dardaarmayaa xagga carruurtiina in labku ama wiilku uu leeyahay dheef ay leeyihiin laba dhedig. Gabagabo, halkaas ayaa laga keenay in la alifo cilmiga DNA-da. Ilaa maanta la joogo in si fudud lagu heli karo hidde-sidaha qofka.